labada boqortooyo ee Ingiriiska iyo Sacuudiga sanadihii dambe dardar ayuu ku socday cilaaqaadkooda marka laga reebo qadyada qaar oo xaggooda lama taabtaan ka ah oo aad moodo inay siyaabooyin kala duwan isugu maandhaafsanaayeen. Hadda dunida oo dhami waxay si isku mid ah doonaysaa iyaga iyo xulafadooda inay go'aan mid ah iyo mowqifyo midaysan ka qaataan duulaanka Ruushka ee Ukraine. Marka la fiiriyo Putin qudhiisa mashar yara oo kol hore ayuu xoojiyey cilaaqaadka dawladaha qaar ee uu tuhunsan yahay in loo soo mari doono xaggooda. Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa wadahadallo la yeeshay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska. Wadahadalladan oo qadka telefoonka ku dhex maray labada hogaamiye ayaa diradda ku saaray sida muuqata xaaladda dagaal ee Ruushka iyo Ukraine, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Sacuudiga u faafisa. Labada mas'uul ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimaha iskaashiga labada dal ee Sacuudiga iyo Ingiriiska. Wadahadalkoodu wuxuu ku saabsanaa dhowr arrimood oo heer gobol iyo heer caalami ah, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Sacuudiga. ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson wuxuu booqday Sacuudi Carabiya 16kii bishii Maarso, taasoo la aaminsan yahay inay ahayd socdaal ballaaran oo uu ku tagay qaar ka mid ah wadamada Khaliijka, waxaana ujeedka ugu weyn ee socdaalkiisa beriga uu daarnaa sida Khaliijka wadamada ugu tunka weyn ay reer galbeedka ula saf noqon lahaayeen si aysan u aadin docda Moscow oo markaasi qudheeda isku dayaysay inay saaxiibo iyo xubno muhiim ah ka hesho gobolka. heshiis isafgarad ah oo lagu dhisayo golaha iskaashiga istiraatiijiyadeed ayaa la saxiixay booqashada beriga uu ku tagay Boris Johnson dalka Sacuudiga. Bandhigga hordhaca Ingiriiska ayaa ahaa hogaamiyihii ugu horreeyay ee reer galbeed ah oo booqda boqortooyada tan iyo 2018 kadib safarkii madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron 4 December. waxaa la sheegay in uu waqtigaasi kala hadlay tallaabooyinka ammaanka iyo difaaca oo ay ku jiraan dadaallo laga hortagayo khataraha ka imaan kara kooxda Xuutiyiinta ee Yemen oo la aaminsan yahay inay taageerto Tehran.